fiirso oo ka faa'iideyso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midan wax fogeynin waa midan wax ficleyn waa falaaqayntii fahankeena farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faafahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u facweyn iyo jilayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka بسم الله الرحمن الرحيم داوديال إفيرسديال إيجيديال إدايموديال إلوكتيال إدهديال آبايال هويايال أبويال أبايال أبتيال إيديال آيايال أووي أيايو أمورديس أيايو ما هنا أووي ها أبشحن إلى أولا جيران يال ملوك يال مسؤولين يال علماء الدين يال مدحوين يال رئيس الوزراء قدومية برلمان يال وكفرها أفول الكيني يو فهمديني فورمادا أوتو فرديسيني وقتيغان أو كالوا إن شاء الله أنيغا سو فرديسها وقتيغان أو كالواني سو فرديسها فاليهان سو فرجيها idinkaa soo aruuriyaadin soo farjiimayno fiirsadayaal very nice yaal anfarahey wixii bafuulo waa soo fasaxa ku soo dhowaada qorobka koowaad ee faaliyaha qaranka haahey socdaalkii nabad ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed bin Cabdullaahi bin Maxamed Farmaajo mashaariic badan ayuu soo dhagax dhigay kuwaas oo hadda la rabo in la dhiso degdeg ha ahaato wadooyin waaweyn ha ahaadaano okay mashaariicdaas ma yihiin kuwa hadda kharash loo haayo waa su'aal mashaariicdaas kulligood waxa ay ahaayeen hamina wax ka fiican ma leh laa taqniduu min raxmatillaah alayri rajo waaye rajadaasna aad iyo aad iyo aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay in sha allahu tacaala waana la dhisi doonaa ciidanka kenya leemaan ku jireena is ilaahay baari waaya ciidanka kenya ayaa waxay dhibaatooyin ka wadaan xuduudda Soomaaliya dil handadaad xoog isbuucii dadka dhan waxay ka dhigeen isbuucii hadda la soo dhaafi dhagool say dhagool ugu dhigeen dhigahame ka nabar dhaween maya dhagool waxaa loogu dhigi gobolka waxaa keeni dhagool inaa laga dhigo xaruntii isgaarsiinta hormuud ay damiyeen ma aha ay dumiyeenna ma aha waa guween sida warka uu qoraayo اللهم نجنا wax isgaarsiin ahna kama jirto xuduuda haday isgaarsiin jirinna dhaga ma jiro haday isgaarsiin jirinna indha ma jiro hadii isgaarsiin jirin af ma jiro sama jiro qodobka saddexaad saxaafadda Soomaaliya ayaga loo wici jiri markii mas'uul uu rabo inuu hadlo hase ahaatee saxaafadda naftirkeed ayaa kulan casho sharaf ah u sameysay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir waa Taabit Cabdi Maxamed hasha ayagoo waxqabadkiisa wax u qabashada dadka liita ugu mahad celiyay Taabit Cabdi Maxamed intuu saarnay wuxuu soo qabtay waxqabadkiisa sida dadka tabaaleysan macnaha oo wax ugu qaba jiri ayay ugu mahad celiyeen saxaafadda idilna waa macsalaameeyeen Taabit Cabdi Maxamed qorobka afaraad kalamaan la dhahaa ilaahow isku maan naga yeel waa qodob aad aan u nacbanahay ilaahow isku maan naga yeel ilaahow kalamaan ma rabna yaa rabbi ilaahow meel walba Soomaali joogta ilaahow isku maan naga yeel
اوكي شناد وورجيسيada iyo waxay qoreen oo alaaba caay ma aha alaaba hadii la furo nabarka shaata leeyahay nabarka shaata hadii la furo alaab way oo alaaba meehani markii xaaji banaadir ee boogay noo akhriyo mar lamaad anni akhriyo khorobari warka ugu door karoonaya socraalkii nabad ee madaxweynaha Soomaaliya socraalkii nabad ee madaxweynaha Soomaaliya mashaariicdan ayuu soo dhagax dhigay kuwaas oo hadda la rabo in la dhiso haddayna qalaheed degad haddayna qalaheed wadooyin waaweyn balse mashaariicdaas hadda ma loo hayaa wax qarash ah laakiin waxaa la yiri laa taqnidu min raxmatillah ilaahay raxmadiisa yaan laga quursanin waa rajo waa hami qofka haddii hamigiisa uu dhisan yahay ama rajo uu leeyahay ama uu leeyahay yaqiin ma sha Allah wax walba waa qabsamaa insha Allah waana la dhisi doonaa warkaaney waxaan oo hayaa oo noo soo fiiriyo soo faateeyo soo forney fandhicilna u soo qaati oo soo foori hayo ya soo farjiha waa abaha ku soo dhawaa waxaa ogtiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo al-Musharraf mukarrama ku dhaa bini'aadin meeshii la rabi waaye waa safarkana waxaas ku tagay min Puntland ilaa Galmudug safarkiisa horta ko aan sheegay waxaas ahay safar le kale arag oo baaxad weyn waana taagsanay warjaf iyo jiiraan ku dhahay tuuli iyo degmo xaafa ilaa magaalo jaqda taqsiil ilaa dariiq dhagax laabo oo Puntland min Galmudug ku taalo kulli waa booqdi duqooyda waalidka ilmaha kulligoodna waa ku farxeen kaale arag weliba waxaa ogtay madaxweynaha geesinimo asubi jidka socodka lagu maraaye diyaara ma jirin ha ahaatee markii nin bajaaj saaran camal aswakaada usoo buruuftiisa saaran sababtoo ah jugjugta iyo karkashinka ilaami faruusan asku tagay usigana waxa suubi meel alla meeshii as arko oo dhibaato ka muuqato weliba dhibka dhib yarna ahayn meel kastaba dhibaa ka muuqdi usigana waxaa daba socota baabuur leejandadiyaashayaal car isgadis ah meel kasta dhagaxaa la dhigay iyo shamiindo oo meel kasta oo madaxweynaha oo kilida ay ka xanuunjisa marka jidka asmaraayo dhagax dhigas ku suubinaa usigana waxaas dhahay wadadaha la dhiso horaa loo socdo waxaas arkaa ceel oo isku dunsan dhagaxaa la dhigooya waxaas afkaa qof oo qolqolooca meel jooga usigana magaciisii nafaqa iyo walaxaa meel loo dhigooyaas dhah si saas u soo dhan waa badaalib cadaada markis tagay laamiyaalka fafaruura markis arki iyo ceelasha isku dunsan iyagana waa dhagax dhigi war si dhagax loo dhigay goboladaas dhan dhagax waa laga waayaan ku dhahay dhismaha leela rabo ha ahaatee waxaan sheegaa aniga sheekadan dhan oo kali arag oo idin sheegayo oo fiican oo dalka iyo dadka u fiican dhammaanteeda markii laisku soo duuduubo war waxa leeba sheekada ay tahay rajo iyo riyo sababtoo ay wax diyaarsanba ma ahaba hadda ka bacdi le waay hadda ka bacdina waa ogtihiin xaalkeeda siisna khanay fuluus badanay rabtaa laakiin dowladda shiinaha dowladda kuuriyada waqooyi ameerika garab taagan isla markaas markii dhagax la dhigayo hore ii kana ka dhisooyin maa sheekada madaxweyne farmaajo geesinimo qaatay laakiin ahaatee keligiisii ummadda Soomaaliyeed waa iyagana riya iyo rajalay ka wadaan adoo Soomaaliya aan ka haddii mar maskaxdooda wax asku seef gareesma computer amar waayaan ku dhaa wixii laga ballan qaado isniinta lay ka rabaa ma bakayeelayaan maalin kale ha ahaatee madaxweynaha tilaabo fiican asqaadaya
laakiinse waxaa roonad maadaama dadka maskaxdooda kombyuutar ay tahay mashruucii waa kan dhismihiina waa kan fundigii waa kan faryaamihii waa daba socda saasay ku toosneed laakiin rajo dadkiina waa seefgareysteen aw farmaajo laakiin nin waxaa tahay oo geesi ah haddiiba arrintaas asubis faaliyaha qaranka universal t v muqdisho abbaha iyo eegayaal qodobka labaad ciidanka Kenya waxa ay xuduudda Soomaaliyeed ay ku hayaan dhibaatooyin ay ka wadaan dil handadaad iyo xoog isbuucan dadkii ay waxa ka dhigeen dhagoole dhaga la'aan ay ku rideen dhegtamay alxan ugu shubeen maya dhagaha may ka nabar dhabeen maya saliid kuleel may ugu shubeen maya ee waxay dadka dhagahooda macnaha ay ugu qaateen oo dhagool ugu dhigeen isgaarsiintii hormuud ayay baguweenba oo meesha ku taale haye maxaa dhimanoon idhahaa oo dhegayseesinka bacdi isgaarsiintii hormuud ee bala gubi mala duminin waa la gubiyaa lagu dhahay arkenya say rabtaa maxay naga rabtaa unaka hadda meeshaasi wax isgaarsiin ee kama jirto waa xuduudda ilaa fal ku taala waxaan ii sheegaa warkaaney waxaan ii sheegaa khoodhanaan ii sheegaa aliyo khoodha soo dhawaa waa ku eri waxa soo badanaya imika dhaawacyada iyo dhibaatada weyn ee loo geysanayo shacabka Soomaaliyeed oo u geysanayso Kenya imika xuduudda Kenya wada dhagool baa laga dhigay sababta ay ku dhacdayna ana idin sheegi doona marka waxa la jaray isgaarsiintii weyneed ee hormuud ee ku taal xuduudda Kenya wax isgaarsiina iyo wax wada hadlaya midnaba ma jiro dadku waa wada dhagoole marka wanaaga iyo dhaqanka dadku marka ugu horeysa waa raashinka marka kale marka ku xigtana waa biyaha waxay haddana u baahanayaan waa isgaarsiinta ay waxaaba materialkaas oo dhan ay ku helayeen shacabka Soomaaliyeed tiina lama hayo waana baabiyeen dhulkana way la simeen waa arin aad u cajiib ah marka dadkaas waxa u hadla faraska number 1 ah waxa weeyaan dawladdiina kama hadal arrinka haysta xuduudda Kenya iyo area inta ku nool Soomaalida ah waxa aan filayaa in dawladdu ay ka hadli doonto mana aha wax laga aamuso waxa aan leeyahay horta ayagu hamidoobaan oo cadowgan fargelinta ku haya dhexdooda ee tafaraaruqa ku ridaya si ay uga midoobaan taasana ku iman karta xorriyad nabad wanaag marka shalay shirkadda hormuud isgaarsiinta gaarsiisay dadka xuduudda Kenya jooga ee hiiga u haysay ayaduna iyay jabin ha u geyso isgaarsiinta marka shirkadaasi ha u dayactirto oo ha hagaajiso sidii iyo si ka wanaagsanna ha u qabato Fuad Xasan faaliyaha qaranka Universal Muqdisho ahey ilaa fal ku taala allah waxaan la yaabanahay heestii ahayd dhul ninkiisii baa iskale antee ka baxdi aawi heestaas mala duugi flop may naqati aawi Kenya unka naga celiyahay us wadankan aawi dawladii wadankan laheed ama dawladii wadanka joogtay aawi ma jiifta ii kama isku maqan ii kama iska kharoofo hooyaan ii kama aawi dawladii naga celi laheed Kenya waan ugu soo durgoosaaye hormuud ay gubtiyaa la yiri dadkii dhan dhagool ay naqdeen mar walba waxay ku soo durgoosaa xuduudda badda waa laga celceli hooyaa alloora Kenya ilay bariga ka imaado ma la sugaa oo Virom ka imaado aabi is dawladii aabi dawladayni Maxamed bin Abdullah bin Maxamed Farmaajo aawi Kenya yaa naga celi karaahe unuka ilma adoogooda u hiiliyo see way ilaahay baari way
أروح على خبطه أر على جيفنين ألسكم مخنانين ونكلا اسكم مشغولين حدودا لينهي حدان لينهي بدان لينهي خضب كسدحات صحافة صوماليا ayagaa la wici jiri markuu rabo mas'uul inuu wax sheego saxaafadda hee ii kaa la wici jiri war ujoog ii ka ahaayeen ii ka ahaayeen war ujoog ii sharuur ujoog hadda waxaa dhacday saxaafadda naftirkeedbe inay casumaad u samayso sharaf leh casho sharaf inay u samayso guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir waa taabid cabdi maxamed ayaaba saxaafadda waxay isku xilqaantay in ay casho sharaf u samayso waxayna ugu hambalyeeyeen waxqabadkiisa iyo wax u qabashada dadka liita sidoo wax u soo qabtay iyo sidoo dadka liita wax ugu soo tari yaa leehaa saxaafaddaa leehey yaa la leehaa taabidaa la leehaa waxaan kaaga mahadnaqaynaa wax qabadkaagii qurxoonaay iyo sida dadka liita aad wax ugu soo qabati taabid cabdi maxamed guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir meesha ayayna ku macsalaameeyeen taabid cabdi maxamed anigoo ku hadlaya magaca faaliyaha qarankana waxaan ku leenahay mudane guddoomiye qof walba taariikhdaa xusayso okay warkaana waxaa inoo haysa warisareena aamina macoo cabdulle amo ilig soo dhawaawe xilku waa meerto qofna ilaahay hibo uma siinin laakiin waxaa la isdheeryahay waxqabadka sida aan wada ognahay gobolka banaadir waxaa ka dhacay isbeddel guddoomiyihii hore xilkaa laga qaaday guddoomiye cusubna waana loo magacaabay xaflado badan maamulka ayaa soo qaban qaabiya laakiin xafladihii hore tan way ka duwan tahay xafladan waxaa soo qaban qaabiyey suxufiyiinta Soomaaliyeed waxayna u soo qaban qaabiyeen ugu tala galeen guddoomiyihii hore in ay ku sagootiyaan guddoomiyahaas oo ah taabid cabdi maxamed waxa ay ugu tala gashay xafladaas saxafiyiinta ay ugu tala galeen taabid qalbi jiliciisa waxqabadkiisa dhalinyaronimadiisa iyo wanaagiisa ayay ugu tala galeen xafladaas waana lagu sagootiyay si sharaf mudan oo xushmada ay ku dheehan tahay ayaa lagu sagootiyay waxaana ka soo qayb galay tiro la eg 200 oo suxufiyiin haddii ayba ka badnayn mana jirin dhaliil wax u soo jeediya dhanka shacabka haddii la fiiriyo kalsooni aad u fiican ayuu ka haystaa weliba masaakiinta ku sii dar wax dhaliil ah oo ka haysto ma jirto intaas way ku wada faraxsanaayeen weliba wax oo ka hadla meeshaas ama uu ka sheegay inuu dalka uuna ka bixin oo la ku shaqayn doono dawladnimada uu sheegay asiga weliba waxa kale uu sheegay inuu dadka garab istaagi doono sidii hore oo markuu guddoomiye ahay ayuu u hadlay welibana isma bedelin waxa la yaab leh ama lagu faraxsan yahay saxaafadda ayada ayaa loo yeeri jiray balse hadda iyada dadka u yeeratay guddoomiye taabad iyada u yeertay iyadana casuumatay oo weliba casho sharaf u sameysay saldhig waa hadalka kooban ee ah in dhammaanteen ay naga wada go'an tahay qofna keligiisa maaha qof kasta annagaa weheli waa ku celinayaa kelmaddaas qof kasta oo duruuf kasta ku sugan oo aan soo sheegnay qofna keligiisa maaha innagaa weheli waa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adaha amniga askarteena wadaniyiinta oo saacaddan aan joogno qaarkood magaalada bannaankeeda ilaalinaya gudaheeda ilaalinaya oo ay duruuf ayagana haysato markay ugu yar tahay ee dhaxantu haysato waxa aan ku joogno waa dhiigga aad noo hubaysaa
waxqabadka markii madax lagaa dhigo ma ahan wax kugu soo degaya laakiin waa hibad ilaahay ku siiye ama haybad waxaasan ka filaynaa guddoomiyaha cusub ee hadda loo magacaabay master yariisow inuu intaasoo kale iyo in kabsii badan aan ka sugnaaba aamin macu cabdulle faaliyaha qaranka universal t v muqdisho qodobka afaraad waa arrintii ama sheekadii ama aan aadkii aadka u nacbanaay ee kalamaan ilaahow isku maan naga yeel yaa rabbi ilaahow adaa isku midab naga dhigi ilaahow adaa isku madhab naga dhigi yaa rabbi ilaahow adaa ummadda nabi maxamed naga dhigi ilaahow isku maan naga yeel meel walboon joogna soomaaliya yaa rabbi ilaahow qaluubteena burcad ilaahow laabteena isku soo dhaqa sheekadaasi waxaa mar walba ama had iyo jeer mar walba had iyo jeer mar walba koo kalankiinaa sugaya nabarka shaata meehane waxaa noogu suu suubiya oo riwaayadaas noogu dhigaa waa qaar ka tirsan fanaaniinta faaliyaha qaranka ama wariyayaasha faaliyaha qaranka ilaa fool ku taalaa daawasho wacan oo wanaagsan والله هو ماشي واضح عدله واحد جوجا ماله لكن وحوال بكل واسك ما دونا وحقاقي كل السلام عليكم. عليكم السلام ورن حالده ما انت واد شلنته هيه وحاجه شنيو محمود البلا شكله ورمايا نيو ها وبلنسنا هيه goor dhowna xilal ay balan qaaday xila ha wada waa mar dhow waa bahashu oo aan alaabteeni la sida waxa leeyahay ya alaabtee teeni dee aan gacanta gelin jirin dilaal baan haynay war maya hadee waa kuu sheegay bahashaas waxa waay ma soconayso haye inaan ka baxno isku day ka baxnaa ha hadee aniga hadii xil ma nibir bay noo soo caariyay waraan hadii xil ii magacaawo waxaas adiga soo hadal qaadin marka meesha inaan ku ceewowo maro ma waa jawa la ii balan qaada aniga mar dhow imika sana muraayada baan qaadanayaayo aniguna xilkaaga xil ka dambeeya war aniga waa goor dhow hadda wasiir aan magacaabo rabaa ha ya ha أتا أروح ميرج. وابا أوكي بتيجي أنا جوا. السلام عليكم. عليكم السلام. هي والله أخيرتي ذوقكم والله. عجيب بابتي. فرت إيدك واحد من كلا يابي. تلفون دينا المشغول. حد آخر مشغول كاس. وربما هذا هينيو. فرت ماذا نشاء صاحبي يلا. هي. أنا برنامج شاهدين ولا. هي. سدح قبل أن سوق عليه. وفانتي سوما. هي سدح قبر في زوين كول لعقت الديار واي وكقاضي لعقته اللي كان فاهمينه مركب في زوين كي ان ربا ان صور لمينو imku soo toosay suugo هي انا يا اخي maxaan soo toosay warniyahow ninka waxa uu sheegayo maxay tahay dad kale ma uu ku qaldoyaa maxaan dad kale ku qaldayaa uu hurdaa mu soo toosin wariye qalad ma jiro dad isla shaqeeyaan maxaa dhacay war ma yaanan heshiin haye warma haysidee niyo waqooyi hilaa wad soo kala hortoostee yaa wad soo kala hortoostee haye bal markii inta soo wada toosto sideedan oo kale imika anagu waan soo wada toosno markii markii soo boodna hurdada adiguna qayb baad kaga timid joono mi tashateen warmaya waxaas hala reeba Cabdul ma dhahdeen waxa aad sheegayso ha waxaas waa ceeb ma garatay war maxaa ceeb soo xaaskeyga dara turkiga fiisa anagu soo qalqaalin adiga ma xad ay akhay ma wareertay maxaa dhacay say wax ka noqdeen ha macna shirkadda ma laga bixi rabaa war ma haba shirkad iyo waxa sheegay ay wada saddexdan fiisa aan soo dhameynaya gabdha isugu aniga darad waa ogtahay wixii airportka ka dhacay ay in xildhibaan waxaas iyo kala habeehayo lagu arkay ay marka adiga ceeb iyo waxa la raadin aniga mar uu hadda wasiiraal iyo magacaabooya ma garatay hawshaas dhanba waa xaasoo dhan ma jiraan wasiiraan ku qoslaya marka kor uga bax adiga maxaa lagu magacaabay xaasa soo qaadin adiga waa wasiirka cusub mar dhow goorme hadda berri ma saa damba waa li magacaaba way isku daba jirtaa ma ogtay wa alaykum salaam ay ma ilahay ay maxamed alxamdulillah khayr ya
إلهي محدث أي لما دام بر لبسها كبها وايد داقت درر لي إيه ورنبا ما لقوا شيء إيه باش وقردو برما سادن بالي مقعاب الربا ما يتن مقاوض وسيرة لقيت الربا ما خلين ميادي ما بل السعود ما بقى السعود تدميع أنا دحوم لا إن صوب مقشي إن حلك اللي يدي بوي بديقنا وهوش أسأي وسعودي دو إيهم بليه سيدان كوما ليه هاي الحمد لله دواب هدام كاركي بداية كيتا لما دام برنا إذا هرتي أنا مراي بابور أو نبت سبيل شيء أنا أرغنا يا قدر يا ريتي هي هرتا أبوس الحمد لله هرتي غير إلهي كله ما أنا كأرغو نصيب قبته أنا ميلون على أرغاس هركي مارني والكست أرغهاين هي والكست أرغهاين مركي الدريرات جيسو إسكفيري هي مركي الدريرات جيسو إسكفيري دادنا أنكو هر مرتوي هي دردارتي دي جيسو هي دادنا أنكو هر مرتوي هرنا انجرتين جدالنا انجرتين لكن بدنا جدالنا إن بدنا واد مد لما تدنا بكايل كساس هرته ها سفيع بكايل كساسه بكايل مار سيو وأنت دم بكايل وهردا درمدا بسوي يا يا حاتري هذا درينكا ما أرتيو أو سيان كأري أن ويلو وايت ميل كست هرت هذا لك ديجاس يا ميل كست هذا الأول تم هذا لانكي هذا هوسر باركين بداي لا ورك كين شيء يا هذا ما علم من الشيء ورك همين لي أنا يوحنا هذا لا تهربت وزير ولكن كوي وفدكين كوي ما أنت ولكن كوي ماركو لانكان كين كوه فيسك هذا مارك كابيلته واقع مرك ورا هالي دياريو أنت هالي دياريو ما دياريانا بارك إيه ديار مراسو أنت واي أفيس دت باي إيمانو مريكا بالينكو أر مريكا أنت يال مريكا أنت يال هيلك باي كو قاضي تاسا جرت موجي وحان إسلا يورتس موجي برنامج إسكان يا هاي خبط كاي هالغياب هذيك أنت داك بحي داك بحي وزيرده waxay saxawanin والقبض داك بحي والقبض داك بحي arintaas arin aad u culus ah والقبض داك بحي عوا مذوع بحي يا أريكي هذا ما عرفنا أريكي هذا ما يأتي هذا دو ما يورته جامع فندال جماعة فندال أركتي أنو يريس كحنوسن وسي هم بار لبورة هاي هورت دبعتي سن بارتي هذا ولا أوي ولا أنقوه ده مرمر هذا دتك ما أق جاب شيء كدب براي المصيبة أرد ديايتي لأن يرتي لحق الاستاف مدوس عود أرمد ملك السب ولا صوب بمركز شعب إسجع ليسي ها شعب إسجع ليسي ديق واشوبه ليغا شبي والبدن wax kasta on ogna aragtay oo hadda in shisheeyo kor iyo suubi maxaan ku dhahay hami usoo hundiraawley ها usoo hundiraaw oo maarta dadaal nafta sheexaayo maarta see wadan bedelaas see shacabka wadanka ka usoo ka fikraay lee darawal shay warqad in sheeyani qasday anigu waxaan sii diyaar gareeyay golad buruuftii yaa haye ciidankii wixii oo dhan waa sii wada diyaar gareeyay okay waa loo ma baahan fahamtay oo tii hore waan ka baxnay ma garanaysaa maxaa okay laakiin waa in ido ayaa kuwii hore loo qalayay ya idahan madaxa waaweyn leh Idaha xagee? madaxa madow leh dii xagee lagu qalay miyaad ogeyn magaalada in guri walba neef idaa la hor dhigay major wartay wuxuu jira hay hay saa shirka oo loo fadhiyo هاي hay soo baxaya ها war idaa ka soo baxay in la qalqalayo إذا القلاية كوي جو والله لا لما دقوي سدح أفري أفر هاي شريشن هاي وركيسي قاد قاداني حلك عنك قاد قاداني qalqalaane قاداني قاد قاداني حلك عنك قاد قاداني قلقلاني إذا عن قلقلاني قاد قاداني حلك عنك قاد قاداني قلقلاني إذا عن قلقلاني war waa qalis قاد قاداني حلك عنك قاد قاداني قلقلاني إذا عن قلقلاني i eegayaal i daymoodayaal
haddana waxaa ku soo dhawaatiin wax yar ee boogay maki xaaji banaadir shaashadda aan u baneeyo abwaan maki xaaji banaadir alxaaji banaadir wax yar shaashadda aan u baneeyo walaalkeyga maki xaaji banaadir ku soo dhawow mahadsanid cabdimurid dheer ajakis bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada oo xiliyadan oo kale aad uga barateen tv-ga caalamiga universal stuudigiisa magaalada muqdisho daawadayaal toddobaadkan barnaamijka wargeysyada waxaan kusoo qaadanaynaa wargeyska la magac baxay cawashada darawaliinta wargeyska cawashada darawaliinta boggiisa maanta wuxuu ku daafuray marka hore waxaa in la ogaado oo la qiimeeyo u baahan qofka darawalka ah in uu yahay isku xidhaha bulshada nolosha iyo degaano kala fogfog sidaa darteed darawalka ma geyo amaba ma mudno in uu culeys uga yimaado wadooyinka uu baabuurka la marayo xilliga uu waajib gudashadiisa ku guda jiro ayuu yidhi qoraha maqaalka cawashada darawaliinta wuxuu intaasi ku daray maalmihii ina soo dhaafay darawaliin badan waxay ka cawanayeen gobollada ay baabuurta u kaxeeyaan wadooyinka gala in ay culeysyo ka soo wajahayeen iyagoo warbaahinta u waramayey qaar badan oo ka tirsan darawaliintaasi waxay sheegeen oo ay kala dhigdhigeen lacagaha looga qaato amaba uga baxa wadooyinkaasi ay gobollada ay ka howlgalaan wadooyinka loo maro uga baxa in aysan awoodi karin oo ay aada u badan tahay maslaxana ay ku qabin oo ay culeys ku tahay ayay sheegeen darawaliintaasi ka cawanayay gobollada ay ka howlgalaan wadooyinka gala culeyska ka soo wajahayo wuxuu yidhi qoraha maqaalka cawashada darawaliinta ogow qofka darawalka ah amaba wadaha gaariga markii aad aragto isaga oo baabuur raran oo kor iyo hoos ilaa dhexe ka raran mas-uulka ah oo kaxeynaya markaad aragto ha uu akhrinin ileen uma qornay ha uu akhrinin waxa saaran oo dhan inuu isaga leeyahay ileen isaga waa shaqaale kaaliyihiisu waa shaqaale alaabta saaran dadaa kale leh xitaa laga yaaba in hal qaf iyo laba qaf aysan lahayn oo jameeca lagu leeyahay marka intaasoo dhan adigoo xisaabinaya qofka darawalka ah amaba wadaha baabuurka walaalow u garaaw ha saarin culeys hadduu adiga wax kuu sidin walaalkaaga wehelkaaga dadkaaga tolkaaga xididkaaga seediyaashaada sokeeyahaaga saaxiibadaada ayuu u sidaa culeys waxaa ku filan wadooyinka tabcaanka ah oo dhammaantooda u baahan dib u dhis iyo dayactir muuqda in uu haween iyo maalin ku soclaado ayaa culeys ugu filan ee adiga haddii aad wadooyinkaasi ka qayb tahay dadka ka howlgala isu socoshadeeda walaalow amaba walaalayaal u heeliya darawaliinta mar walba inay cawdaan inay cawaadaan inay taahaan yaan laga shaqaynine iyagoo wax farxad sheegayo hala arko hadda kadib ayuu ku soo gebagabeeyey maqaalka cawashada darawaliinta boggiisii maanta iminkana waxaan gelaynaa boggii ahaa wax ka baro suugaanta iyo mahmaahooyinka soomaaliyeed wallee duub abwaan baan si taalee dardari maayo dib in lay barana uma fadhiyo dalkanka soo jeedo dareen laashimeed baygu jira qof la diraa maahi ana isdira dadkan la hadlayaa isla dadkaygii ah dalka aan ka sheekaynayana waisla dalkaygiiba dalka aan ka sheekaynayana waa isla dalkaygiiba
waxaan nahay dadaan kala dhacayn duul walaala ahoo diin iyo caqiid iyo hidaba ku kala duunayne dulqaad iyo inaad muujisaan debicsanaan waarta isku daya allah deeq baxshee dejiya laabtiina haleesdila dow maahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabadda gogashii daaweynta digtoonaada soomaaliyeed dalkan axwaashiisa dib inaad u eegtaan mar kale danyarta xaalkooda isku daya allah deeq baxshee dejiya laabtiina haleesdila dow maahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabadda gogashii daaweynta diiq gees male dabaco baala male duduma hoosteeda dan kolkay kubaddu iska dugsee kana dareennaaw duruufaha waxbaa lagu bartaa qofka dareenkiisa sidaa furan inuu uga waramo wuxuu daneenaayo ha loo daayo waa mudan yahee dib u heshiisiinta ku dabaqa kitaabkiiyo sunnada dawgacad waa kaase wax ka duwan haddaad qaadataan dakharka iyo boogtiyo xanuunadii la daaweyn lahaa bay ka darayaane soomaaliyay dagaal lama rabee nabadda doon doona dadkaygow colaad lama rabee nabadda doon doona tolkaygow dakana lama rabee nabadda doon doona iscafiya dalkiiyo dadkan urtura diriirtan soo yaalka qaabkii looga daawoobi la furi dariiqeeda iscafiya dadkiiyo dalkan u tura diriirtan soo yaalka qaabkii looga daawoobi la furo dariiqeeda dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabadda waa daabo isku duubni baa lagu hodmaa nabadda waa daabo dad iskaashi buu walax ku yahay nabadda waa daabo tanaasulka dow baa lagu furtaa nabadda waa daabo danqashada halkay qayb ka tahay nabadda waa daabo dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye dalkayaga allow noo xasili daa'im baa tahaye dadkayaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye caasimadda inoo deji allow daa'im baa tahaye xamar caddey inoo deji allow daa'im baa tahaye banaadir inoo deji allow daa'im baa tahaye muqdishaay inoo deji allow daa'im baa tahaye gobollada inoo deji allow daa'im baa tahaye tuulooyinka inoo deji allow daa'im baa tahaye xaafadaha inoo deji allow daa'im baa tahaye degmooyinka allow noo xasili daa'im baa tahaye dabka shidan allow naga baktiyi daa'im baa tahaye dagaalada allow naga korqaad daa'im baa tahaye colaadaha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye awaaraha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye cudurada allow naga dulqaad daa'im baa tahaye sicir barar allow naga dulqaad daa'im baa tahaye mandar khayr allow noogu deeq daa'im baa tahaye nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye dembi dhaaf allow noo hiwey daa'im baa tahaye dalabkeena noo fuli allow daa'im baa tahaye saan doonayna noo yeel allow daa'im baa tahaye ducadeenna eebow ajiib daa'im baa tahaye aamiin iminkana waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambeysay iyo saddexdii maamaha waxaan ka bilaabeynaa isma hurtooy ha ishaleynin isma hurtooy ha ishaleynin far kaliya fool ma dhaqdo quraansho aruurtay bulac waa jiidda intaasi ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka wargeysyada iyo maanta dhinaca farsamada waxaa iga saaciday oo gacan buuxda iga siiyey maamow iyo guuleed cabdisalaad khaarey wargeeska waxaa soo diyaariyey ish soo mariya halkan naga soo jeedinay anigoo ah xaaji maki xaaji banaadir buurfuule banaadir baaba xaaji bacdaa dhuqso annagoo isku duuban waxaan idin leenahay nabadiino nolol kulanti ammaano allah iyo kulanti dambe oo xiise leh waxaad iga barateen heestii guwaabada ahayd ee soomaaliyey toosoo toosoo isku tiirsadaye hadbakiina taag darane taageera weligiine everybody caymaya qof walba soomaaliye soomaaliyey toosoo toosoo isku tiirsadaye hadba kiina taag darane taageera weligiine taageera weligiine soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midoodo
yaa rabbi soomaaliya ilaahu mid khuro ka yeel ilaahu meel walboon joogno min ras cambonia ilaa lawiyo cadda ilaa shiino soomaali ma madow waa laga sheegoyaa shiino iyo tokyo iyo philippine iyo indonesia iyo shiina madow soomaali waayaa lalahay amaana allah amaana allah amaana soomaali meel ay joogin male ilaahu meel walboon joogno yaa rabbi ilaahu rabbiyow raxmaano abtiyow eesimo waa nahay ilaahu khuluubtayni isku dhaq ilaahu laabtayni burcad isku mari ilaahu dhexdayni biyo qaboob kusoo shib yaa rabbi abtiyow eesimo waa nahay ummadda nabi maxamedaan nahay isku jinsiyaan nahay isku waxaan nahay diin isku madhabaan nahay ilaahu dhexdayni biyo qaboob rabbiyow soomaali mid qoro ka yeel soomaali mid soo noqotee mulehey ka tuugaye maal adduunyo muuna male naftayaal ismootinine mindi ku taagan moradood ku jirnaaye muslinaanahay mulo naga mooti mashaakilkan aamiin dhaha aamiin aamiin laa taqniduu min raxmatillahi ilaahay baryadiisa ma dhaafeeno ma ka noogeeno asiga annagaa u baahan yaa rabbi annagaa kuu baahan adi ma noo baahnid yaa rabbi ilaahu rabbiyow raxmaano ilaahu rabbiyow soomaaliya mid hor ka yaal aamiin dhaha idayne aamiin dhaha haddana waxaa idin salaamaa horta waxaa noo imaadeen ingiriiska dad martiyaa noo joogtaa ii kaa laga bilaawaa salaanta waxaa ingiriiska noogu imaaday cabdalla cumar waa kasii siina umaleha waxaa kaloo ingiriiska noogu imaadayo nii salaama cabdalla cumar waa nii salaami haddana axmed dhayra nii salaama axmed dheere mana dheere us cawadii markas jiftas dheeryahay umaleha axmed dheerena waa nii salaama waxaa kaloo idin salaamaa abwaan maki iyo xaaji banaadir waxaa idin salaamaa abwaan maxamed weli xaaji axmed john oo ku magac dheer abajoonka waxaa kaloo idin salaamaa abahaa waxaa kaloo idin salaamaa qowdhan waxaa kaloo idin salaamaysa aamina macow cabdulle maxamed maamowe malaayiga muufaas ku cunaa maxamed maamowe malaayiga muufaas ku cunaa iyo waxaa idin salaamaya dejiyaha duubaha deeyaha diraha waa yarka sanadka jalaqsane guuleed cabdi salaad qarey yaa dhiman iyo anigoo ah soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogeynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeenna farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka